aan sumadaha iyo sawraca kala duwan lahayn ee abka iyo isirka xididka iyo xigaalnimada wadaaga ma dhaafaanimo ee ilaahay isbaday ee qaranka qoobada yara ka dhaxaysiiyay ee daafaha adduunka naga daawanaya kulankani aniga oo si mug iyo miisaan leh uga mahadnaqaya Cabdikariim Axmed Mooge Liibaan Baban oo qaatay doorkan horena loogu ogaa doorar badan oo kanoo kala ah annaguna aan goob kasta iyo goor kastaba garab taagnaan doono inta saantayadu iyo dheecaankayagu luxudka iyo iilka ka sarreeyo gooray gaadhaba waxa aan kale uga mahadnaqayaa raggan kale ee muhiimka ah abwaan weersame iyo abwaanka da'da yare Mandela gudoomiyayaasha saddexda garab dhalinyaro ee axsaabta siyaasadda iyo xubnaha kale ee la wadaaga iyo bahda saxaafadda ee arrintan iyaduna sida aan macaashtoonka ahayn uga qayb qaadanaysa u doonaysa in qaranku isku dubnaado oo walaaltinimada la nooleeyo wada jirka is ahaanshaha isu heelinta isdugsiga iswaacaansiga ummadda oo u diyaara inaan buriyo xoog lagu kala furfurin maalmihii arrimahan laga hadlaya ay dhacayeen waxaa dareenkayga ku soo xoogaysanayay saddex ama dhahdii laba tuduc oo maansa ah oo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay uu lahaa macallin Cabdilaahi Duudaan wuxuu yidhi geb markuu dareenkii noqdo ee gegi bannaan seexdo rag gedmadiyo geeriyo dhurwaa gama addaystaaye haddii dareenku dumo seexdo gegi bannaan raganimada iyo mas-uuliyadda iyo xilkasnimaduna ay gedmato raganimadu gedmato iyo dhurwaa gama addaystaa oo halkii uu xalay seexday ku baryaa hadday intaasiba is helaan raganimada iyo ninka raggaa iyo dhurwaaguba waxay geeriyoodaan oo dhintaan oo luxudka iyo iilka jiifsadaan iyaga oo nool halkaas cunaya sidii bahalkii bariishka ka dhacay baraarugay goor la soo baxay ilaahay ballankii barqanka ay barqo Cabdimarow ilaahay ha u naxariisto ayay isku nuxur yihiin waxa aynu dad iyo dareen iyo ummadnimo ku nahay marka aynu samaha u heelino xumahana ka heelino marka aynu xumaha ka kacno diidno in cid lagu gafo sharaftidooda milgahooda dadnimadooda in qarannimada lagu gafo markaynu diidno wadaniyada ummadnimada wada jirka marka lagu gafo sida marka hablaheena lagu gafayo ee hooyooyinkeen lagu gafayo inaynu uga diiro oo inuu la mid noqoto ayaa ay tani ka dhigan tahay oo muhiim ah waxaan anigu ku soo afjarayaa in badan baa la yiri saddexda gudoomiye ee axsaabta saddexda musharax Muuse Biixi Cabdi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Faysal Cali Xuseen saddexda waxaan ka codsanaynaa inaanay ummadayada ula hadin sida caamada ah inaanay ummadayada ku kala qaybin damacooda shakhsiga ah muraadadooda iyo qaradadooda siyaasiga ah ee ay doonayaan inaanay hooyooyinka iyo abtiyada iyo ilmaabtiyada iyo habarwadaagyada iyo ehelkayaga aanay ku kala qaybin ee ay ku ilaaliyaan midnimadooda iyagoo damacooda watay ka dhexraadiyaan inay yimaadaan halkan saddexdooda oo isuwan sida imika saddexdan dhalinyarada ah oo ay ummadda ka shaafiyaan kana dhaahiyaan dhaashi ka mariyaan waxyaalihii sunfurta iyo xumaha badnaa ee calooyowga badnaa ee dharaarahan ay saxaafadda isku marinayeen ee dadka kicinayay ee iska horkeynayay ee na xasuusinaya dib foolxun iyo haare iyo dakhra hore noogu dhacay taasaan doonaynaa hun rabnaa